horta waa maxay cardio ama cardiovascular exercise waa jimicsi walba ama dhaqdhaqaaq walba oo markaas suubisid wadnahaga garaaciisa uu kor u kacayo. tusaale ahaan qofka bini'aadanka caafimaadka qaba normally markuu waxba qabanaynin wadnihiisa daqiiqadii wuxuu garaacmaa 60 jeer. marka cardio suubisid waxaa kor u kacayo garaaca wadnahaaga. inta garaaca wadnahaaga kor u kacayo waxay ku xiran tahay cardioha nooca suubisid. tusaale ahaan hadaa suubisid low intensity cardio markaas wadnahaaga garaaciisa aad kor ugu kacayo waxaana suubin kartaa ama wadi kartaa cardio inaad suubisid waqti dheer. laakiin hadaa suubisid high intensity cardio wadnahaaga garaaciisa aad kor ugu kacaa aad u neeftuuraysaa waxaana laga yaabaa waqti dheer inaad sii wadi weysid suubitaanka cardioha. taasna waxay ku xiran tahay wadnahaaga soo diyaarsan yahay xaaladda guud ee jirkaaga, sanbabahaaga iyo nervous systemkaaga. cardio waxaa loo suubiyaa laba nooc koobaad oo ah low intensity interval training. low intensity interval training waxaa kamid sida socodka, dabaasha, baaskiil waditaanka, cross trainer, row machine iyo kuwa kale oo badan. low intensity interval training markaa suubinaysid wadnahaaga garaaciisa aad kor ugu kacayo markaasna way kuu fududaanaysaa inaad suubisid 45 daqiiqo ilaa dhowr saacadood. habka kale ee cardio loo suubiyo waa high intensity interval training. high intensity interval training waxaa loo suubiyaa tusaale ahaan oo kale orod. aad u ordaysaa orodkaaga meesha ugu dambeyso 45 second ilaa 1 daqiiqo. marka intaas orodid haddana orodku waa tartiibinaysaa 2 ilaa 3 daqiiqo. 2 ilaa 3 daqiiqo marka orodka tartiibisid kadib haddana waxaa aad u ordaysaa orodkaaga meesha ugu dambeyso 45 second ilaa 1 daqiiqo. saasaa ku wadaysaa ilaa aad ka gaaraysid waqtiga ugu tala gashay ilaa cardio suubisid. high intensity interval training baaskiil waditaanka waa lagu suubin karaa, dabaasha waa lagu suubin karaa, row machine waa lagu suubin karaa, cross trainer waa lagu suubin karaa. habab kala duwan oo badan oo loo suubin karo jiro iyo waxyaabo kala duwan oo badan oo lagu suubin karana way jiraan. marka hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay kee fiican in la suubiyo ama kee faa'iido badan in la suubiyo high intensity interval training iyo low intensity interval training. waxay ku xiran tahay goolkaaga, waxay ku xiran tahay cardioha nooca aad jeceshahay, waxay kale ku xiran tahayna tabartaada. haddii aad tahay qof rabo inuu murqo dhisto markaas waxaa kuu fiican low intensity interval training. sababta maxay tahay fiiri biraha markaa qaadid kadib hadaa rabtid cardio inaad suubisid markaas waxaa kuu fiican socod treadmill inaad ku suubisid ama baaskiil wadid waxyaabahaas oo kale oo ah low intensity interval training kuu fiican. sababta waxay tahay biraha kadib markaa cardio suubisid cardiohagan uu yahay sida socod oo kale markaas jirka murqaha way u fududaanaysaa iyo nervous systemku way u fududaanaysaa recovery inay suubiyaan. maalinta ku xigtana birihii si fiican u qaadi kartaa cardiohagana waa sii wadi kartaa. laakiin hadaa dhahdo waxaan suubinaa biraha markaan qaado kadib high intensity interval training sida hid oo kale markaas markino murqaha iyo nervous systemku way ku adkaanaysaa inay ka reestaan. maalinta ku xigtana waxaa laga yaabaa biraha inaad si fiican u qaadi weysid markaasna waxaa imaanaysa mataqaanaa maalinta ka dambeyso inaad biraha si fiican u qaadi weysid markaasna murqahaaga horumar badan ma suubinayaan. dadka inta badan waxay u maleeyaan trainingka kadib ama resistance trainingka kadib markay ay suubiyaan 5 ilaa 10 daqiiqo oo hit training ama high intensity interval training inay calorie badan gubayaan. taas run ma ahan. haddaa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo hit suubisid taas macnaheedu waxay tahay ugu badnaan waxaa gubaysaa 50 ilaa 100 kilocalorie. taasna wax weyn ma ahan. mideeda kale waxaa kaloo jiro dadku wax kale isku khaldaan marka orodka caadiga suubinaysid. orodka caadiga ma ahan hit ama high intensity interval training ma ahan. kaas waa moderate intensity interval training. kaasna wax kala waay. haddii aad tahay qof waxaan ku cusub isla markaana rabo inuu miisaan iska rido adiga waxaa kuu fiican inaad suubisid low intensity interval training sida socod oo kale, baaskiil waditaan oo kale, dabaal oo kale, cross trainer, row machine waxyaabahaas fudud adiga kuu fiican. sababta maxay tahay horta tabar uma haysid inaad suubisid hit training oo tabartaada heerkaas weli ma gaarsiisna, sanbabahaaga weli heerkaas ma gaarsiisna, wadnahaaga weli heerkaas ma gaarsiisna, nervous systemkaagana weli heerkaas ma gaarin inaad soo dhistay u baahan yihiin. low intensity cardio sida socod, dabaal, baaskiil waditaan suubiskooda ma dhib badna waqti dheerna waa wadi kartaa. laakiin hadaa dhahdo waxaa isku khasbaa inaan suubiyo hit training markaas waxaa imaanayso jirkaaga inuu xamili waayo. waxaan imaanaysa maalinta ku xigto inaad wadi weysid markaasna goolkaagii ma gaaraysid.
horta maxay tahay sababta ay muhiim u tahay qofka markuu miisaan iska ridaayo inuu suubiyo cardio wuxuu ka caawinaa calorie badan inaad gubtid. marka calorie badan gubtidna markaas waxaa kuu fududaanayso inaad ahaatid caloric deficit markaa tahayna markaas miisaan ka dhacayo. miisaanka ka dhacay waxaa sababay waa caloric deficit. si kastoo training u suubisid, si kastoo jimicsi u suubisid, si kastoo cardio u suubisid, inta rabtid suubi haddii raashinka u saxsaneen miisaan ma ka dhacayo. horta daarad miisaan askarid waxaa koow inaad tahay caloric deficit, in raashinka la saxo, energy ka baxayo kan ku soo galayo waa inuu badan yahay, kan ka baxayo kan ku soo galayo uu yar yahay, markaas kadib ayuu miisaanka ka dhacaa. haddaad tahay qof channelka ku cusub ah isleedahay see caloriga iyo waxaas loo xisaabaa, video waan ka suubiyey hada channelkayga raadisid ma aragtay waad helaysaa. dadka qaar qosolkay ka dhameynayaan, wuxuu ku leeyahay qofka athletics ahaan jiray, sporti ahaan jiray, banooni ciyaari jiray, banoonigu ku leeyahay waa ciyaari jiray, odayaasha xaafaddu la ciyaari jiray banooni 2 daqiiqo marka la ciyaaro 20 daqiiqana la murmaayo waaye. markaas qofkii asigoo socon karin ayuu wuxuu leeyahay waa orda, markaasuu orda hal maalin isku qasbaa ama 2 maalin isku qasbaa, markaas kadibna lugaha xanuunaayo, jilbaha xanuunaayo, meeshaas uu ku dhaafaa. dadka tan ma ogtahay wadnaha waa muruq ugu muhiimsan oo bini'aadanka leeyahay. markaa joogto cardio u suubisid wadnahaaga xoog u yeelanaa, asiga xitaa muruq waayo in la dhiso u baahan yahay. wadnahaaga markuu xoog yeesho caafimaad qabo si fiican u shaqeynaa, markuu shaqadiisa si fiican u qabsadana adigana waxaa tahay qof caafimaad qaba. cardio wuxuu ka caawinaa sanbabahaaga inay caafimaad qabaan, inay xoogeystaan. tusaale ahaan haddaad tahay qof asma qaba, haddaa cardio suubisid si tabartaada ku salaysan tartiib sanbabahaaga way xoogeysanayaan. markay sanbabahaaga xoogeystaan waxaa laga yaabaa daawada asmada u qaadanaysid inaadan u baahan. cardio wuxuu kaloo ka caawinaa dhiigga jirkaaga ku jiro inuu si fiican u wareego. markuu dhiigga jirkaaga ku jiro si fiican u wareego, meel kastoo jirka kamid uu gaarana caafimaadkaaga wax weyn iska bedelayo. cardio wuxuu kaloo ka caawinaa difaaca jirkaaga inuu xoogeysto. markuu difaaca jirkaaga xoogeystana hargab iyo waxaas si sahlan ma kugu dhacayaan. tanta ugu muhiimsan waaye dadka laakiin inta badan inay maqlaan ma rabaan. cardio wuxuu kor u qaadaa kalsoonidaada. fiiri, haddii kalsoonida ka dhimato markaas adoo nool oo dhinto kala waay. kalsoonida bini'aadanka ama nin ahow ama naag ahow muhiim ay u tahay. cardiona wuxuu inuu kalsoonidaada ka bedelaa. fiiri, inaad filter isku furtid iyo inaad makeup marsatid iyo waxaas kalsooni ma ku gelinayn, ama dhar qurux badan soo gashatid iyo dadka waa iskaga dhigi kartaa qof isku kalsoon, laakiin deep down waa ogtahay inaadan isku kalsooneen. marka cardio kalsoonidaada kor u qaadaa. midda kale cardio wuxuu ka dhigaa ma aragtay da'daada inaad ka yartaa oo dhaqso ma tuqoobaysid. asxaabta videoga meeshaan ku soo gabagabeynaa daawashada videoga daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin. inta videoga ka bixin waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaa videoga like na saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share gareysaan. haddaa weli subscribe dhihina fadlan subscribe waa ogtihiin dadkeena dad badan oo arrimaha caafimaadka xiiseynayaan kuma jiraan. marka adiga videogan fiirsanayo haddaa like saarin qof kale like ma saarayso. mahadsanid asxaabta. waxaan noo balanay videoga ku xigo. balanteenuna waa muruq iyo caafimaad.